kadib markii ay habeennimadii xalay maamulada Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabeen gudiyada doorasho ee heer maamul goboleed ee dowladda federaalka Soomaaliya haddaba waxaanu aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan arintan wax ka weydiinay shacab weynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso iyagoona si weyn u soo dhaweeyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa 5 Somali TV oo aragtida uu weydiiyay sida loo arko gudigii xalal magacaabay arintaas waxaan arkaynaa inay soo dhaweyn mudan tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo saaka Boosaaso lagu wada hadlaayay ama dadka qof salaama wuxuu ku salaamay xalay waa gudigii la magacaabay waxa weeye gudigii hadii arintii doorashadii waa bilaabatay waxa moodaa Soomaaliya Israaciil inay arintan soo dhaweynayso waxa moodaa inay midnimada Soomaaliyeed soo dhaweynayso waxa moodaa hor socodka Soomaaliya inay ka shaqeynayso aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo arintaas ku dhiiraday go'aankaasna qaatay waxaan leenahay madaxweyne horeyna waxa weeye waxa la daahday waxa weeye waa ilaalinta iyo midnimada iyo boolisiga siyaasadda Puntland oo wakiil nooga tahay ilaalinteeda awalna oo la daahday hadeerna waa ku mahadsantahay hadda gudiga gudbisay baan leenahay Soomaaliya hore u socoto Bismillahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdishakuur gudiga xalal la soo saaray waxa dawladda Puntland ka filayna way Jubbaland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa insha Allah Soomaalida waxaan u rajeynayaa inay markasta danteeda garato insha Allah waxaan leenahay guliga gobonimo ka dhacday Puntland ma haddaan nahay waxa weeye aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay waxa weeye dawladnimada iyo nidaamka dastuuriga markasta waa taageersanahay Bismillahir Rahmaanir Rahiim dhamaan waxa salaamay horta dadka Soomaaliyeed salaanka bacdi run ahaantii horta waxaan arkayay gudidii oo la soo saaray marka gudidaas oo ah Jubbaland iyo ay soo magacawday iyo Puntland marka waxaan leeyahay horta marka la eego inkastaana fiirin magacyadoodii iyo maarta qaabkoodii si loo soo balkeeyay laakiin waxaan filaynaa qaab in Soomaali Israaciil oo kale baa inoo muuqatay oo qaabkan ku taageeri karnaa marka waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed Bismillahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdisalaam Daahir Faarax waxaan ku noolahay magaalada Boosaaso gaar ahaan gobolka Puntland ee gobolka Barian taaganahay maadaama Jubbaland iyo Puntland hadii dhinac laga yaabo isku xidhan yihiin waa dad walaalaha muuqatay oo maasha Allah weeyi laakiin dawladda Soomaaliya meesha ka kici weyday muuqata waa labada maamul goboleed kale hata ka dhaqaaqi weynay waxaan sano leenahay shacabka Soomaaliyeed halka taagtaagan soo eegayo waa meesha noogu jirto haddii walaayna saxisiin taageero haddii khaldayna khadaan ka joojino saan dhaano inta kale loo baahan yahay Salaam Rahiim haddaan aragtida ka dhiibto maanta aadum saxalay saqdi dhaxaadu waxa la magacaabay xubnihii ma taqaana doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliya ee dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa moodaa waxa weeye in ay muddo dib dhacsanayd oo dadka Soomaalida macnaha markii in badan soo wada hadlay oo in badan waxa weeye siyaabo badan markii dawladdii dhexe ay maaragtay samaysay aad ay carqalado badan ay wajahday oo ay siyaabo badan oo la hadashay dawlad goboleedyadii oo markii laga maarwaayay oo wax laga waayay jawaaba ay xalay waxa weeye magacaabeen markii uu magaranaysaa uu tagay ninkii qaramada midowga u joogay Soomaaliya marka waxaan u aragnaa arrin nasiib darro ah waa arrin kalsooni darro ku abuuraysa dadka ay matalaan maamulada waa arrin maaragtay keenaysa fashil iyo maaragtay in aanay dadkan macnaha aysan ku matalin wadaniyad iyo mataqaanaa jiritaan ummadeed ku soo wada duubay arintan ayaa imaanaysa kadib markii khilaaf uu soo dhaxgalay maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay xalay go'aankeedii ku aadanaa arinta soo xilida ergooyinka maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ka tanaasuleen Cabdulle Maxamed Barre 5 TV magaalada Boosaaso